kasoo qaybgalayaasha iyo dhalinyarada soo agaasintay bandhigan isku keentay dhalinyarada Soomaaliyeed. Anigu waxaan ahay asaasaha shirkadda Somali Safe Needle oo ah shirkad ka shaqeysa medical waste-ga qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka ayaan ka shaqeeyaa. dad badan baa i weydiiyey markaan meesha fadhiyay yiri maxaad kaga qayb galaysaa barnaamijka markaan u sheegay way u qosleen qashinka ayaan ka shaqeeyaa. runtii waxaan u fahmay inaysan fahamsanayn medical waste-ga ka soo baxa goobaha caafimaadka. anigu waxaan aasaasay shirkaddaas medical waste-ga ka shaqeysa oo u gaara qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka. waxaan keenay mashiino lagu burburinayo cirbadaha iyo wax walbo shaabisa oo cirbad ama sakin ama wax walbo af leh waxyaabaha lagu burburiyo ayaan keenay. sidoo kale waxaan dhisay meelo inseentara oo magaalada geeskeed ku taalla waan ugu talagalay in waxa wastiga kale lagu gubo. sidoo kale waxaan sameeyey gaadiid daboolan oo markay magaalada dhex marayaan aan wax qashin aan daadinin oo safe ah. shirkaddaas baan sameeyey waxayna shaqaynaysaa muddo yar oo kooban ilaahay mahadkiis dhalinyaro fara badan ayaa ka shaqaynaysa si wanaagsanna shaqadeedu waa u socotaa. marka runtii waxaa aad ii farxad geliyey in la igu casumo bandhiga hibada lagu soo bandhigayo. waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo fikrado saliim ah oo aan isdhihi karo xataa mushkiladda waddanka ka jirta haddii wax laga weydiin lahaa ama la dhihi lahaa fikradda haysan keena bulshada wax badan ka bedeli lahaa inay guryaha la jiifaan fikradahooda isla markaasna ay ka cabsi qabaan haddii ay fikradooda soo bandhigaan in laga xado. waxaan dhihi lahaa dhalinyaradii barnaamijkan soo samaysay gartay in dhalinyarada Soomaaliyeed la dhiirigeliyo inay sameeyaan xafiis la yiraahdo xafiiska aruurinta fikradaha dhalinyarada Soomaaliyeed si maaragtay dhalinyaradu ay u fakaraan isla markaasna fikradahooda ay ku taagtiraan. aad baan runtii u bogaadinayaa haldoorayaasha dhalinyarada walaalaheena ee barnaamijkan sameeyey waqtigu aad noo haya. waxa weeye farxad bay tahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan bandhigada dambe aan qayb ka qaadan doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Warahmatullahi. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.